Assalaamu calaykum. Kani waa robot sida ibni aadanka u shaqeeya. Waa uu hadlaa, wax buu arkaa, xataa waxa uu yaqaanaa jiliinka sida aadanaha oo kale. Su'aasha isweydiinta mudan, maadaama uu robot isku samayn karo waxyaabaha aan kor ku soo sheegnay, ma qaadan karaa shaqooyinka aan ka shaqeyno adiga iyo aniga ama dhammaanteen? Waa mawduuceena maanta. Ma jirtaa qof inkiri karta inay aad u soo farabadanayaan robotyada iyo qalabka otomaatiga ah nolol maalmeedkeena? Waxaa tusaalooyin kugu filan kuwa yaala supermarketyada iyo wadooyinka waaweyn. Kororka robotyada wuxuu horseeday digniino cabsi leh iyo xogo badan oo ku saabsan mustaqbalka shaqada. Waxaana digniinahaas ka mid ah hadal uu yiri Elon Musk oo ah ninka iska leh shirkadaha Tesla ee soo saarta gawaarida korontada ku shaqeeya iyo shirkadda SpaceX ee hawada sare shaqadeedu tahay. Wuxuuna yiri robotyada waxay awood u heli doonaan inay qabtaan wax walba oo inaga naga fiican. Daraasaad mar dhow la sameeyay ee sheegaysa in 670,000 oo shaqo Mareykanka laga waayay inta u dhaxaysay 1990 ilaa 2007 sababtuna ahayd robotska dartood. Tiradaasina way u badan tahay inay kor u kacdo. Sidoo kale daraasaad si ballaaran loo tixraacay oo la sameeyay 2013 ayaa sheegaysa in ku dhawaad kala bar shaqada Mareykanka taala inay khatar ugu jiraan in automatic laga dhigo 20 sano ee soo socota. Shaqooyinka u baahan soo noqnoqoshada iyo saadaalinta hawlaha ay ka mid yihiin safarka, logistikada iyo taageerada maamulka ayaa si gaar ah khatar ugu jira in shaqadoodu ay bedelaan robotska. Kaliya ka fikir, robotyada uma baahna caafimaad, fasax iyo inay hurdaan. Laakiin dooda ku saabsan in robotyadu ay la wareegi doonaan dhammaan hawlaheena weli si naba loo maxalin. Dhaqaaliyahano badan ayaa ku doodaya in shaqooyinka otomaatika laga dhigo ay abuuri doonaan shaqooyin cusub. Waayo robotska waxaa programinaya dadka. Tusaale ahaan, aan dib ugu laabano 1850 markaas oo tareenku ahaa wasiilada ugu casrisan uguna caansan ee lagu safro. Shaqooyinka injineerada tareenada iyo kuwa wadooyinka tareenka iyo shaqooyin badan oo la xiriira tareenada ayaa si badan kor ugu kacay. Laakiin qarnigii 20aad waa yaraadeen sababtoo ah waxaa soo baxay gawaarida qof walba wadan karo. Laakiin shaqooyinkii aan kor ku soo sheegnay bedelkooda waxaa galay motorada gawaarida iyo samayntiisa iyo shaqo walba oo la xiriirta gawaarida ilaa shaqooyinkii la xiriira tareenada ee gabi ahaanba qarsoomaan. Taa mid la mid ah ayaan dhici karta markii robotska suuqa yimaadaan. Sahmin ama survey laga qaaday ku dhawaad 20,000 oo qof oo dadka shaqaaleysiiya oo ka soo jeeda 42 dal ayaa sheegaya inay qaadan doonaan shaqaalaha yaqaana IT-da, customer service iyo kuwa kale oo badan 2 sano ee soo socota. Way adag tahay in la qiyaaso in robotsku ay soo saari karaan astaamaha aadanaha sida dareenka iyo naxariista oo looga baahan yahay shaqooyinka qaar sida kalkaaliye caafimaad ama macallin. Laakiin xitaa haddii robotyadu aysan shaqooyinkeena gabi ahaanba qaadanayn, cilmi baaris ayaa muujisay inay si weyn u bedeli doonaan hawlaha maalinlaha ee goobaha shaqada. Tani waxay si gaar ah dhibaato ugu tahay shaqaalaha aqoonta hoose ee aan awoodin inay sii haystaan shaqooyinka cusub. Waxaa laga yaabaa inay ku sababto mushaar hooseeya. Taasi waxay sababi kartaa isu dheelitir la'aanta dakhliga dadka. Ma laga yaabaa in robotsku qaataan shaqooyinka dadka?